Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka Somali Live Media. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena haddii eebba idmana waxaa qayb ka ah wakiilada beesha caalamka oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ugu baaqay in si dhaqsi ah loo qabto doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha Soomaaliya. Ruushka oo markii ugu horreysay soo bandhigay qodobada suura gelin kara inuu wadaxaajood la galo dowladda waddanka Ukraine. Xukuumadda Ruushka oo soo saartay xeer lagula wareegayo hantida reer galbeedka ee taalla gudaha dalka Ruushka. Imaaraadka iyo Sacuudiga oo diiday in ay qayb ka noqdaan cunaqabataynta xulafada reer galbeedku ay kusoo rogeen dalka Ruushka kadib weerarkii uu ku ekeeyay dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Iyo sarkaal sare oo ka tirsan militariga Mareykanka oo sheegay inuu cabsi ka qabo in Al-Shabaab ay weerar ka fuliyaan gudaha waddanka Mareykanka. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan wararkeena haddii eebba idmo. Balse marka hore haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar channelka, like saar muuqaalkaas, hina share gare oo la wadaaga saxaabtaada, qaybta hoose ee commentigana nagula wadaag aragtidaada. Waa hagaag aan ku bilownay daawadayaal. Wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku dalbadeen dhamaystirka doorashada baarlamaanka iyo qabashada doorasho dhexdhexaad ah oo loo qabto afhayeenada labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya. Saaxiibada caalamiga ah waxa ay la socdaan in doorashada in ka badan 80% ee kuraasta golaha shacabka lagu soo dhammaystiray waqtigii ay u qabteen golaha wadatashiga qaranka ee 15 Maarso ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen xubnaha beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya. Waxaan si xoog leh ugu boorinaynaa dhammaan daneeyayaasha in caqabadaha hortaagan dhamaystirka geedi socodka ee goobaha codbixinta weli harsan ay ku xaliyaan wada hadal iyo wadar ogol si dhaqsi ah oo lagu kalsoonaan karo loogu soo afmeero doorashooyinka. Sidaasi darteed waxaan dhammaan hogaamiyayaasha siyaasadda ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara isgarabyaac aan ku salaysnayn heshiis ay u dhan yihiin dhinacyada muhiimka ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka. Xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale dalbaday in la laba jibaaro dadaalada ayagoo ku baaqay in la xaqiijiyo matalaadda qoondada haweenka ee 30%. Qoondada haweenka ayaa u muuqata inaysan sanadkan gaari doonin oo ay ka hooseyn doonto 30% marka la eego kuraasta soo baxday oo ay aad ugu yar yihiin haweenku iyo kuraasta harsan oo kooban. Saaxiibada caalamiga ah waxay hogaamiyayaasha Soomaaliyeed ku boorinayaan inay ku dhawaaqaan u diyaargarowga ayna ballan qaadaan inay ka go'an tahay inay dardargelinayaan howlaha horyaal si loo tixgeliyo qodobada dastuurka Soomaaliya ee la xiriira geedi socod dhexdhexaad ah, isla markaasina la doorto afhayeenada labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, wadamada Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, boqortooyada Sacuudi Carabiya, ururka jaamacadda Carabta, Holland, Norway, ururka iskaashiga dalalka Islaamka, Qatar, Ruushka, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, isutaga Imaaraadka Carabta, boqortooyada Ingiriiska, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Baaqa saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo la soo gabagabeeyay doorashada kuraasta reer waqooyiga, kuwa banaadiriga iyo kuwa ka imaanayay maamulada Galmudug, Puntland iyo Koonfur Galbeed, isla markaasina haatan ay kuraasi ku dhiman tahay oo kaliya maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland. Dhanka kalena haddii aynu eegno taliyaha ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ninka lagu magacaabo Stephen Townsend oo wareysi siiyay idaacadda VOA ayaa waxa uu ka hadlay awoodda kooxda Al-Shabaab iyo waxa uu qorsheysan dowladda waddanka Mareykanka. Stephen Townsend ayaa sheegay in madaxweynaha 46 ee dalka Mareykanka uu la wadaagay digniin la xiriirta halista ka dhalan karta awoodda dagaalamayaasha Al-Shabaab oo sii xoogeysanaysay wixii ka dambeeyay bilowgii sanadkii 2021. Taliya Stephen Townsend ayaa sheegay in Al-Shabaab ay si weyn u sii korortay awoodoodu wixii ka dambeeyay markii ciidamada Mareykanka laga saaray gudaha dalka Soomaaliya. Wuxuu intaasi ku sii daray in dowladda Mareykanku ay hadda wajahayso cabsi la xiriirta in kooxda Al-Shabaab ay fuliso weeraro ka dhan ah danaha Mareykanka ee meelaha ka baxsan gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan tuunsanahay in Al-Shabaab ay awood u leeyihiin in Mareykanka ay ku bartilmaameedsadaan meel ka baxsan gobolka, xitaa haddii ay ahaan lahayd Mareykanka. Washington si weyn loogama aaminsana sirdoon ahaan, balse dareenkayga taliya ahaan wuxuu ii sheegayaa in ay samayn karaan Al-Shabaab, sidaasi ayuu yiri taliyaha ciidamada AFRICOM. Stephen Townsend waxa uu xusay in go'aankii ciidamada Mareykanka looga saaray Soomaaliya uu lahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, wuxuuna sheegay inuu ahaa go'aankaasi qariska tuurnimo hoos u dhigay awooddii ciidamada Mareykanka lagu yaqiinay.
markana haddii aynu eegno dhanka iyo ruushka iyo wararka la xiriira dagaalka u dhexeeya ruushka iyo Ukraine, wadanka ruushka ayaa markii ugu horeysay waxaa laga soo wariyay wax u eg inuu diyaar u yahay inuu wadaxaajood la galo dowladda wadanka Ukraine. gelinkii dambe ee Khamiistii, madaxweynaha wadanka Ruushka Putin ayaa qadka telefoonka waxa uu kula hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Putin ayaa Erdogan u sheegay qodobada ay Ruushka heshiis nabadeed kula geli karaan dowladda wadanka Ukraine. Faahfaahinta wadahadalka madaxweynaha Ruushka iyo kan Turkiga ayaa waxaa bixiyay afhayeenka Erdogan ahna taliyaha ugu sarreeya ee madaxweynaha wadankaasi Turkiga ninka lagu magacaabo Ibrahim Kalin oo la hadlay idaacadda BBC-da, wuxuuna ka mid ahaa dad kooban oo dhageysanayay hadalka telefoonka la isku weydaarsaday ee dhex maray Putin iyo Erdogan. Dalabaadka Ruushku waxay u diyaarsan yihiin laba qaybood oo waaweyn. Afarta dalab ee ugu horeysana sida uu sheegay Master Kalin, fulintoodu aad uguma adkaan doonto dowladda wadanka Ukraine. Kuwa ugu waaweyn waa in Ukraine ay aqbasho inay noqoto wadan dhexdhexaad ah iyo in aysan ku biirin iskaashiga ururka NATO. madaxweynaha Ukraine Zelensky qudhiisu waxa uu horay u muujiyay inuu sidaasi diyaar u yahay. waxaa jira dalab kale oo qaybtan ka mid ah oo badankood u muuqda kuwo weji badbaadin u noqonaya Ruushka. tani waxay weerar culus ku tahay madaxweynaha wadanka Ukraine Zelensky oo isaga qudhiisu Yuhuudi ah, qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisana ay ku dhinteen xasuuqii Yuhuudda ee Holocaust. laakiin Turkiga dhankiisu waxa uu aaminsan yahay in ay arrimahani aqbalitaankoodu ay u sahlanaan doonaan Mr. Zelensky. waxaa laga yaabaa in dadka reer Ukraine ay ku filnaato oo kaliya inay cambaareeyaan dhammaan howlaha la xiriira taageerada Naaziga ayna ballan qaadaan inay baabi'inayaan. qaybta labaad ee dalabka Putin uu u gudbiyay Erdogan ayaa waxaa ku jira waxyaabo ay adag tahay inuu aqbalo Zelensky. wicitaanka telefoonka Mr. Putin waxa uu ku sheegay in ay u baahnaan doonaan wadaxaajood foolka fool ah oo uu la yeesho madaxweyne Zelensky ka hor inta aanan heshiis laga gaarin qodobadani. Mr. Zelensky waxa uu horay u sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadaxaajood foolka fool la yeesho madaxweynaha wadanka Ruushka, madaxweyne Vladimir Putin. Master Kalin aad uma uusan sharixin arrimahan iyo waxa ay noqon karaan, isagoo sheegay in muhiimadu ay tahay inay khuseeyaan waxa laga yeelayo Donbass iyo bariga Ukraine. sidoo kale waxa uu sheegay in wadahadalka uu ku jiri karto arrinta gobolka Crimea ee Ruushku uu kol hore xoog ku goostay. inkastoo Master Kalin uusan waxba faahfaahin, maluhu waxa laga qabi karaa in uu noqon karo in Ruushku uu dalbaday in dowladda Ukraine ay ogolaato in laga qaato dhul ku yaala bariga wadanka Ukraine. taasi waxay noqon doontaa mid aad u adag, isla markaasna ku cuslaan doonta inuu aqbalo madaxweynaha wadanka Ukraine Zelensky. waxaa kale oo la tuhunsan yahay in Ruushku uu dalbaday in Ukraine ay si rasmi ah u aqbasho in Crimea oo Ruushku uu si sharci darro ah ku qabsaday 2014 ay hadda tahay meel uu leeyahay Ruushku. haddii ay xaaladdu sidaasi tahayna qodobkaasi Ukraine waa ay ku adkaan doontaa inay aqbasho. waxaa kale oo intaasi sii dheer in Ruushku uu qaatay gobolka Crimea asaga oo saxiixay xeer caalami ah oo tilmaamaya inaan lagu xadgudbi karin xuduudaha caalamiga ah kadib markii uu dhacay nidaamkii hanti wadaagga, balse markaasi waxa ay ahayd bay leeyihiin khuburadu ka hor inta uusan Vladimir Putin madax ka noqon dalka Ruushka. dhanka kale, Ruushka ayaa cunaqabatayn ku soo rogay dalalka reer galbeedka, taasi oo uu uga jawaabayo cunaqabatayno isdaba joog ah oo reer galbeedka iyo xulufadoodu ay Ruushka saareen tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isniintii la soo dhaafay saxiixay xeer lagu xalaaleynayo qaar ka mid ah hantida reer galbeedka ee taalla dalka Ruushka, taasi oo ay gacanta ku hayaan shirkado laga leeyahay dalka Ruushka. xeerkan ayaa u ogolaanaya shirkadaha Ruushka ee gacanta ku haya boqolaal diyaaradood oo laga leeyahay dalalka reer galbeedka inay la wareegaan oo ay hantidooda ku biirsadaan. xeerku waxa uu dhigayaa in dowladda Ruushku ay aqoonsi u siinayso shirkadaha gacanta ku haya diyaaradahan, kaasi oo muujinaya inay iyagu leeyihiin isla markaana milkiyadoodu ay ka wareegtay dadkii horay u lahaa. wax ku dhow 300 oo diyaaradood oo isugu jira kuwa dadka qaada iyo kuwa badeecadaha daabula lagana leeyahay dalalka reer galbeedka ayaa kira ahaan uga shaqayn jiray dalka Ruushka, kuwaasi oo haatan si rasmi ah ay ula wareegayaan shirkadihii soo kireystay ee gacanta ku hayay ee laga leeyahay dalka Ruushka. diyaaradahan oo ah noocyadii ugu dambeeyay ee lagu farsameeyay Mareykanka iyo Yurub ayaa ka shaqayn doona gudaha Ruushka, maadaama dalkaasi uu yahay dalka dunida ugu ballaaran dadkiisuna ay aad u adeegsadaan safarada dhanka cirka ah. shirkadihii iska lahaa diyaaradaha uu Ruushku la wareegay ayaa aad uga walaacsan tallaabada uu qaaday Putin, waxaana adkaan doonta inay hantidooda dib u helaan maadaama loo sharciyeeyay shirkadihii ay horay uga kireysteen. reer galbeedka iyo xulufadooda ayaa Ruushka horay ugu soo rogay cunaqabatayno dhinacyo badan leh, taasi oo si weyn u saameysay dhaqaalaha Ruushka. Ruushkuna waxa uu hadda u muuqdaa inuu sameynayo tallaabo kasta oo uga aargudanayo xulufada reer galbeedka ee cunaqabataynta saaray.
ugu dambeynna haddii aynu eegno dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay inay danaynayso iskaashi ay Ruushka kala yeelato xasiloonida tamarta caalamka, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ninka lagu magacaabo Sheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan oo booqasho ku tegay Moscow. tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, waxaa sare u kacay qiimaha shidaalka iyo gaaska ee suuqyada caalamka oo dhan, maadaama dalalka reer galbeedku ay cunaqabateyno nuucyo badan kusoo rogeen xukuumadda Moscow. wadamada reer Yurub oo si weyn ugu tiirsan gaaska Ruushka ayaa bilaabay inay ka codsadaan dalalka Khaliijka, gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudiga, inay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka iyo gaaska si ay u buuxiyaan kaalinta uu baneeyay Ruushku. labadaani wadan ee Carabta ah ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ka cagajiidayaan baaqyada uga imaanaya Mareykanka iyo Yurub ee ku aadan kordhinta shidaalka iyo gaaska ay soo saaraan Riyadh iyo Abu Dhabi, ayagoo sheegay inay u hoggaansamayaan heshiis ay horay u galeen ama ay la galeen dalalka OPEC iyo xulufadooda oo Ruushku uu ka mid yahay, kaasi oo lagu xakameynayo wax soo saarka dunida. waa muhiim in la ilaaliyo sicirka tamarta iyo cunooyinka suuqyada caalamka. waxaan soo dhaweynaynaa in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda Ukraine. Imaaraadku waxa uu diyaar u yahay inuu xoojiyo dadaalada nabadda lagu raadinayo, ayuu yiri wasiir Sheikh Abdallah oo uu garab taagnaa dhigiisa dalka Ruushka ninka lagu magacaabo Sergey Lavrov. Imaaraadka ayaa u muuqda mid aan hadda rabin inuu iska fogeeyo Ruushka oo culays adag kala kulmayo dalalka reer galbeedka. Abu Dhabi ayaa ka maqneed qaraar dhowaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu u codeeyay oo ka dhan ah duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Ruushka ayaa sidoo kale dowr muhiim ah waxa uu ku leeyahay heshiiska nukleerka ee Iiraan, kaasi oo u muuqda mid mar kale dhinacyadu ay isla meel dhigi karaan. Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa doonaya in heshiiska cusub lagu daro gantaalada balaastiga ah ee Iiraan ay leedahay, kuwaas oo ay u arkaan in ay khatar ku yihiin gobolka. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal wararkii oo aad ka daawanayseen Somali Live Media. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelka, sii shargara muuqaalka oo la wadaaga saxaabtaada qaybta hoose ee commentigana nagula wadaag aragtidaada. intaynu ku kulmayno warkan warka xiga, waa bahda Somali Live Media oo idin leh isma dhaafna daawadayaal. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.